umada Soomaaliyeed wax yar fariin u diro waxaan leeyahay buugan wuxuu ku qorayaa afkiina hooyo wuxuu ka hadlayaa xisaabaadkii ganacsiga ganacsiga muhiimad weyn buu adduunka maanta ka leeyahay shirkadaha ugu badan ee loo shaqeeyo waa ganacsato wadan kasta wuxuu ku faanaa ganacsiga iyo horumarka uu gaaro waa dhaqaalihiisa intuu yahay dhaqaalahana waxa asal u ah ganacsi haddaan wadanku ganacsi sameeyeen wax gadeen wax soo iibsaneen horumar ma gaaro inay akhriyaan oo fahmaan ganacsiga muhiimadiisa aqoonta loo baahan yahay in lagu maamulo ganacsiga waxa laga helaa jaamacadaha iyo buugta cilmiga ah buugan wuxuu kamid yahay buugta cilmiga oo aad ka u yar oo ku qoran afka Soomaaliga inay akhriyaan wixii talooyin tusaalayn iyo maartay dhiirigelin iyo soo jeedin iyo khalad iyo saxid ah buugga waxa ku qoran ciwaano inay aniga igu soo hagaajiyaan waa kula talinayaa dhanka kale marka laga fiiriyo wax akhriska iyo qoristana aqoon-yahanada cilmiyada kala duwan bartay waxa ku talinayaa inay wax ay barteen bari waa iska dhimanaya adduunka waqti koon baa jooga ay umada u qoraan umada kale aan iyaguna cilmiga lahayn iyo kuwa cilmiga leh inay wax akhriska kor u qaadaan nin kasta intuu wax akhriyo buu cilmigeeda iyo maartay aqoonteeda helaya